kadib markii bishii aynu soo dhaafnay laga helay kiiskii ugu horeeyay ee cudurka coronavirus dalka Sweden ayuu haatan si xawli ah ugu sii fidayaa dhammaanba dalka isagoona sababay dhimasho. dadweynaha reer Sweden ayaa aad uga warwarsan sidii xaaladdu noqon doonto. dukaamada ayaa mar kaliya faaruq noqday kadib markii mowjado dad ah ku soo jabeen si ay u iibsadaan wixii ay ku noolaan lahaayeen hadiiba la amro in la xiro dukaamada. dawladuna waxay soo saartay go'aamo ay kamid yihiin joojinta diyaaradaha ka imanaya wadamada qaar, xiritaanka iskuulada, jaamacadaha iyo joojinta bandhigyada ay iskugu imanayaan wixii ka badan 500 oo qof. dadka da'doodu weyn tahay ayaa ah kuwa aad uga warwar badan kuwa kale maadaama la sheegay inay u dhiman karaan haddii cudurkani uu ku dhaco. Göran Udden oo ah 63 jir u dhashay dalka Sweden ayaa mar kaliya fakaday isagoona iska dhiibay dalka Kenya. qorshahaygu waa inaan halkan Kenya joogaa ilaa iyo inta cudurku ka dhamaanayo dalka Sweden ayuu yiri Göran oo la hadlayay Michael Toll oo ka tirsan wargeyska Aftonbladet. waxa kale uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inay Kenya noqoto wadankiisii labaad uuna ka helay soo dhaweyn wanaagsan balse uu diiday inay dadka Kenyaanka ay soo salaamaan maadaama uu ka cabsi qabo inay cudurka qaadsiiyaan. waxaan joogaa dhul dabiici ah oo bannaan heerkulkuna uu yahay inta u dhaxaysa 23 ilaa 25. waxaan kaloo inta badan arkaa buu yiri maroodiyo, libaaxyo iyo waliba dibadeed ayuu yiri Göran oo u warramay wargeyska Aftonbladet. dhagan kalena xaaskiisa iyo 4 caruur oo u dhalay ayaa la yaaban go'aanka uu qaatay oday reerku. tirada dadka Sweden ee laga helay cudurka coronavirus ayaa noqonaysa 1295 kees iyadoo 10 ka mid ahna ay geeriyoodeen. Khadar Shaani, Home Cable, Sweden.